bishii May 6 2014 goorfiid ah waxaa isbitaalka uu ku jira wiilkeeda baarleeska ah ka soo baxday marwadii ugu hantida badneed Monaco Helena Bastard gaarigeedii uu darawalka ka ahaa 64 jirka lagu magacaabi jiray Maxamed Darwiish ayay fuushay hase ahaatee wax ogaal uma lahayn inuu noqon doono safarkeedii ugu dambeeyay waxaa jidka ugu diyaar ahaa shirqoolkii soo afjar lahaa nolosheeda iyo ka darawalkeedaba haddaba maxaa sababay shirqoolkan haweeneydan ma maafiyaa dishay mise heshiis ganacsi oo khaldamay mise cid kale ku soo dhow muuqaalkeena si aad u ogaato sheekada shirqoolkan oo dhameystiran inta aynu shirqoolka ka hadal aynu ogaano meesha Helena Bastard ka heshay hantideeda ballaaran awowgeed John Baptiste Bastard waxa uu asal ahaan ka soo jeeday Talyaaniga oo uu ka shaqeyn jiray dhisidda guryaha ninkan oo dhisidda guryaha u fiicnaa ayaa waxa ay dhismayaashiisii u hirgeliyay soo jiiteen dareenka qoyskii maamulayay maamul goboleedkii Monaco sanadkii 1936 waxa uu amiirkii Monaco ka dalbaday dhismaha garoon kubadda cagta lagu ciyaaro wixii intaas ka dambeeyay waxa isku sii dhawaadeen qoyskii Ameerika John wiilkiisii Gildo ayaa isna horumarka dhaqaale ee qoyskiisa horumariyay waxa uu dhaqaale badan ka sameeyay ganacsiga hantida maguurtada ah maadaama uu aabihii Baptiste iyo qoyska imaaraddu isku dhawaanayeen waxa iyana isku sii dhawaaday qoyska boqortooyada iyo kii reer Bastard kadib geeridii sanadkii 1990 Gildo Bastard wuxuu imbaradoriyadiisii ganacsi uga tagay labadiisii wiil ee Victor iyo Manuel waliba gabadhiisii Helena Bastard oo ah qofka mawduuceena khuseeya markii la soo gaaray 2014 Helena ayaa ahayd tan ka hadhay saddexdii walaalaha ahaa waxaana si iska cad tan ka dhigtay dhaxlaha kaliya ee hantida reer Bastard taas oo gaadhay 23 bilyan oo dollar Helena Bastard waxay dhashay laba qof wiil lagu magacaabo Gildo oo awowgii lagu magacdaray iyo gabadh lagu magacaabo Sylvia Bastard guud ahaan Helena ma aanay ahayn qof lagu tuhmayo inay leedahay cadow badan maadaama oo aanay nolosheedu u badneen dhanka dibadda ama publica haddaba sanadkii 2012 waxaa gabadheedii Sylvia laga helay kansarka naasaha bilowga 2014 isna waxaa geeriyooday walaalkeed Manuel isla sanadkii 2014 waxaa isna istiro ku soo booday wiilkeeda Gildo kaasoo ka dhigay mid si ku meel gaar ah u baarlees garoobay kana dhigay sidoo kale mid aanan hadli karin waxaa la dhigay oo lagu daaweynayay isbitaal ku yaala magaalada Nice hooyadii Helena waxay maalin kasta ka soo tagi jirtay Monaco oo 45 daqiiqo u soo safri jirtay magaalada isbitaalku ku yaalay ee Nice haddaba maalin maalmaha ka mid ah kuna beegneed bishii May 6 ee sanadkaasi waxay Helena sidii caadada u ahayd soo booqatay goobtii wiilkeeda lagu daaweynayay waxay soo macasalaameysay wiilkeedii goorfiid waxaana soo raacday gaarigeedii hase ahaatee markii gaariga ku soo dhacay wadada guud waxa istaajiyay taraafikada oo aad ciido u ahaa hase ahaatee show waxa fursad la maaganaa qof loo soo kireystay dilkeeda nin dhalinyaro ah ayaa inta uu soo abaaray booskii hore oo ay Helena iyo darawalkeedu saarnaayeen laba xabadood ku furay waqti yar kadib waxa loola cararay isbitaalka 4 cisho kadib waxa geeriyooday darawalkii oo lagu magacaabi jiray Maxamed Darwiish Helena dhankeeda waxay u muuqatay inay soo kabsanayso balse 2 toddobaad kadib waxa la shaaciyay in Helena ay u geeriyootay dhaawac ka soo gaaray weerarkaasi boolisku waxay durbadiiba bilaabeen baaritaankii wixii dhacay iyo ciddii ka dambeysay hase ahaatee halka dhib ee jiray ee dadkuna badankoodu ku wareereen ayaa ah in aanay haba yaraatee jirin cid loo malaysan karo cadow ay lahayd si kastaba xaalku ha ahaadee boolisku waxay sameeyeen baaritaan xeel dheer waxaana ay bil gudaheed xabsiga dhigeen 25 qof oo lagu tuhmay dilka kadib waxaa booliska xog dheeraad ah ka siiyay weerarkan 4 nin oo tagsiilayaal ah ka koowaad waxa uu sheegay inuu xarunta tareenka ka soo qaaday 2 nin oo sheegay inay subaxdaasi ka soo safreen magaalada Marsilia 2 tagsiilo oo kale ayaa sheegay in midkoodba uu nigeeyay isbitaalka ay Helena booqatay oo lagu magacaabo Leeshay kan afraad ayaa isaguna daaha ka qaaday in uu habeenkii dil ku dhacay 2 nin qaaday kuwaasi oo doonay inuu toos ugu gudbiyo magaalada Marsilia ayna siiyeen 500 oo euro 2 nin oo ay bileysku aqoonsadeen in ay kala ahaayeen Saciid Axmed iyo Alkhayr Xamaadi ayaa labaduba hore u galay dambiyo hase ahaatee qofna ma aqoon ciday ahaayeen iyo cidda soo dirtayba
sidaas daraaddeed boolisku waxay sii wadeen baaritaankoodii waxayna ugu dambayntii soo xidheen labadii qof ee ugu weynaa kuwa laga shakisanaa. warkan ayaa gilgilay dhammaan Monaco. haddaba haddaad i weydiisid yay ahaayeen labadan qof, jawaabtu waa gabadheedii Sylvia iyo ninkeedii oo lagu magacaabo Wojciech Janowski. waa kuma dhab ahaantii ninkan la soo xidhay ee ay Helena sodohda u ahayd. waxa uu ahaa nin u dhashay Poland sida uu isagu sheegayna ka soo qalin jabiyay jaamacadda Cambridge. waxa uu muddo 25 sano ah la noolaa gabadha Helena ee Sylvia oo hore u lahayd gabadh inta aanay Janowski la kulmin. ayaa sidoo kale ninka reer Poland u dhashay gabadh kale oo dhalatay sanadkii 1997. Sylvia sida hooyadeed Helena oo kale waxay ahayd mid aad u xidhan oo publiga ku badnayn. hase ahaatee ninkeeda Janowski waxa uu ahaa kasoo horjeedkeeda. waxa uuna ahaa mutadawac lacagta siiya fuqarada sidoo kalena aad bulshada uga dhex muuqda. xilligan dilku dhacayna waxa uu lahaa ganacsiyo. 24 saac kadib markii la xidhay Sylvia Pastor waa la soo daayay iyagoo boolisku sheegay inay la shaqayn doonto. ninkeeda Janowski isaga lama soo deyn. boolisku markii ay sii dabagaleen waxay ogaadeen in ninkan aanuba Cambridge ka soo bixin ee waddanka Ingiriiska yimid sanadkii 1971. waxay boolisku sidoo kale ogaadeen inuu ka soo shaqeeyay dhowr shaqo aan wanaagsanayn sida ilaalinta goobta lagu khamaaro. waxauna ninkan noloshiisa oo dhan ku dhisay been sida inuu sheegay inuu ganacsado yahay sidaasi uu xidhiidh kula yeeshay Sylvia Pastor. waxa uu ninkani damacsanaa dhaxlidda hantida ballaadhan ee reer Pastor. si kastaba xaalku ha ahaadee sanadkii 2012 ayay riyooyinkaasi mugdi galeen. xaaskiisii Sylvia ayaa kansarka naasuhu ku dhacay. dhibtiisu waxay timi markii Sylvia oo filaysa ninkeedu aanu wax hanti ah uga baahnayn maalqabeenna u haysatay ay dhammaan hantideedii u dardaarantay labadeedii gabdhood. tani waxay ku ahayd halis sababtoo ah isagu hantiile run ah ma ahayn. dhanka kale islaantii sodohdii ee Helena weligeed Janowski ma aanay jeclayn sida mid ka mid ah qareenadii maxkamadda Janowski la saaray uu ka sheegay. tani waxa ay micnaheedu ahaa haddii ay Sylvia geeriyooto inay sodohdii Helena aanay wax hanti ah ku lahayn. arrintaa awgeed waxa uu dejiyay qorshe shirqool. waxa uu go'aansaday inuu islaanta ka takhaluso inta gabadheedu nooshahay si uu marka gabadheeduna dhimato uu hantidaas ballaadhan isugu dubarito. kadib baaritaankan waxay boolisku su'aal weydiin ku bilaabeen ninkii Janowski ahaa. hase ahaatee waxa uu bilowgii diiday inuu su'aalaha ka jawaabo taasi oo keentay in shaki weyn uu sii galo berinimadiisa. kadib dhowr casho uu jeelka ku qaatay ayuu ogolaaday inuu ka jawaabo su'aalaha booliska. ninkii Janowski ahaa waxa uu sheegay war lala yaabay. waxa uu yidhi anigu waan ogaa in islaantu la shirqoolayo balse wax macluumaad oo rasmi ah kama hayn lugna kuma lahayn. oo sidee buu talow sodohdii oo shirqool lala maagan yahay uu sheegi waayey haddii uu danka leeyahay. dhan kale waxay boolisku wareysteen nin Janowski saaxiib u ahaayeen oo lagu magacaabi jiray Pascal Duryak. ninka dambe ayaa isagu si cad u qirtay in isaga iyo Janowski ay soo abaabuleen dilkan sababtuna ahayd kaliya lacag iyo hanti. waxa uuna sheegay in shirqoolku sidan u dhacay. isla markii uu ogaaday Janowski in xaaskiisa laga helay kansarka waxa uu u tegay saaxiibkii Pascal ugana warramay in uu doonayo fulinta qorshe uu sodohdii kaga takhalusayo. Pascal ayaa isaguna gabadh walaashiis ah oo iyaduna arrimahaas ku dheeraysa u tegay si ay ugu soo hesho gaangistaro fuliya hawshan. waxa ay soo heshay laba nin oo la kala yiraahdo Samiin iyo Alxamaadi oo ahaa labadii nin ee aanu hore u soo xusnay in la xidhay. labadan dila ayaa iyagu hawshan loogu ballan qaaday inay ka xoogsanayaan 100,000 oo euro iyo weliba 40,000 oo kale haddii ay darawalkana dilaan. tarow darawalka maxay ku falayeen? Janowski iyo saaxiibkii Pascal waxay rajeynayeen in haddii ay darawalka dilaan kadibna ay islaanta oo isla shirka la fadhida ku xijiyaan la moodi doono in darawalka loo socday. nimankii labada ahaa ee hawsha loo idmaday way fuliyeen. hase ahaatee intii ay ku guda jireen hawsha waxay sameeyeen khaladaad badan oo keenay in lagu tixraaco. waxa ay tigidh ka soo
goosteen xarunta tareenada ee magaalada Marsilia iyagoo aan ka warqabin in dhammaan xarumaha tareenada ee Faransiiska ay boolisku si aad ah ula socdaan kaamarado badanina ugu xidhan yihiin. Khaladka labaad waxay sameeyeen markii ay degeen hotel ku yaala magaalada dilku ka dhacay ee Nice. Waxay kaga tageen suuliga caagad shaamboo ah oo ay ku qubaysteen. Caagadan ayaa laga helay mid ka mid ah labadii nin farihiisa kadibna laga qaaday DNA. kadib markii ay hotelka ka soo tageen waxay u soo lugeeyeen dhanka cusbitaalka Helena joogtay iyagoo aan isla socon. ugu dambeyntiina waxa hawsha dilka fuliyay Samiin halka Alxamaadi uu dhinacyada ka eegayay. shirqoolkan arxan darrada ah cadeyntiisu ma ahayn mid si dhayal ah ku soo baxday. xaqiiqatan waxa ay qaadatay 4 sano kadib dilka Helena in ninka ay sodohda u ahayd ee Janowiski uu qirto inuu isagu dabo iyo dacal soo qorsheeyay dilkan. maalintaas oo maxkamadda horteeda runta oo dhan ka sheegay waxa kaliya ee uu ninkan iska fogeeyay ayaa ahaa in aanu isagu wax lug ah ku lahayn aanuna amarkiisa lahayn dilka darawalkeeda Maxamed Darwiish. ugu dambeyntii iyo gabagabadii Janowiski waxa lagu xukumay xabsi daa'im. saaxiibkiisii dilka la qorsheeyay ee Pascal waxa isaga lagu xukumay 30 sano halkii labadii nin ee iyagu hawsha fuliyay ee Samiin iyo Alxamaadi lagu riday xukun dil ah. ugu horeyn ninkii ay Helena Pastor dhashay ee qalalku ku dhacay waa uu bogsaday waxa uu u wareegay haddana carruurtiisa kula nool yahay magaalada New York ee dalka Mareykanka. dhanka kale gabadhii walaashiis ahayd ee Sylvia iyadu meel ay jaan iyo cirib dhigtay lama sheegin. wararka qaar baa leh inay dhammaan xiriirkii u jartay ninkeeda Janowiski. ugu dambeyn odagii Wojciech Janowiski ahaa waqtigiisa xabsi daa'im ah ku qaadanaya xabsiga Lebomitis oo ah mid ka mid ah jeelasha ugu ilaalada adag guud ahaan gudaha waddanka Faransiiska. gabagabadii gunaanadkii waxa dabada ka riixayay ee dhiirigelinay dilkan galaaftay labada nafood ma ahayn waxaan ka ahayn mid ah waxyaabaha ugu halisaysan caalamka oo ah lacag. aad baad muuqaalkan dheehashadiisa ugu mahadsantihiin. fadlan ha kala bakhaylin like, share iyo subscribe ku kaalmaysid ciwaanka aanu ku leenahay YouTube iyo Facebook. nabadgelyo iyo nabadiino.